Galdogob ee gobolka Mudug ayaa xilligan ka cabanaya biyo la'aan kadib markii ceelkii biyaha ka cabi jireen riigga waxyeello u gaaray. Waxaana codsanayaan in laga gacan siiyo sidii ceelkaasi dib loogu soo sameyn lahaa. Wariyaha Mashaa'ir ayaa warkaasi inooga soo diray degmada Bursaalax. halkani waa magaalada Barwaaqo ee degmada Galdogob waxaa la aasaasay 2015 deegaankan ayaa waxaa soo wajahay biyo la'aan muddo 3 maalmood ah kadib markii uu jabay ceel biyoodkii ay cabi jireen dadka ku nool deegaankaasi. Saciid Cabdullaahi Muuse waxa uu ka mid yahay ganacsatada deegaanka Barwaaqo waxa uuna ka waramayaa dhibaatada biyo la'aaneed ee ka jirta magaaladaasi. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan joognaa magaalada Barwaaqo. magaala barwaaqo ceelkii ayaa naga jabay awal horena ma lahayn haantii weynada biyaha uu dayacnaa ma lahayn waastooyinka xooluhu ka cabaan oo ku yaraayeen ma lahayn meel dadku ka cabo oo maaragtay meeshii dadka loogu talagalay oo biyo gelinta ahayd haatana waa naga jabay waa u jeedaan dameerihii iyo maaragtay arigii iyo dadkiiba meeshay dhooban yihiin maalinta saddexaad buu marayaa xoolahan waa xoolihii ka cabi jiray waxaan maaragtay ka codsanayaa madaxweynaha sharafta leh Puntland waan ogahay in wax ka qabanayo iyo golaha wasiirada guddiga loo xilsaaray gobolka Mudug inay arinta wax ka qabtaan maanta waxa weeye hay'adaha samafalka ku shaqada arintaas maanta inay arinta wax ka qabtaan waa u jeedaan. sidoo kale odayaasha dhaqanka ee magaalada Barwaaqo ayaa waxa ay codsi wax qabad u direen dawladda Puntland qurba joogta hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah. deegaankaas waa deegaan weyn oo dad fara badan oo meelo badan ka yimid ay joogaan in badan ayaa waxyaalaha asaasiga ah oo noogu daraa waxa ka mid ahaa waxaan sameynay si isku tashiya inaan ceelkii loogu qodo oo jeeb dad shacab ah yaani si isku tashiya in loogu qodo ceelka waa ku guuleysanay waxyaalo kale waa ku guuleysanay inta markaanu dhameystirnay wax badan ayaanu hay'adaha deeqda bixiya iyo maamulka sare ee Puntland khaasiyeen madaxweynaha markaa joogay waxaanu ka codsanay in laga saacido biyo gelinta magaalada haantii dararkii xoolo ka cabayeen intiiba ayadoo naga maqan laakiin ceelkii cabayna ayaa waxa dhacday hadda xilligan aanu hadlayna ceelkii inuu jabay oo bamku ka xumaaday sidaa awgeed maamulka madaxweynaha Puntland wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka Mudug gudoomiyaha degmada laga xukumay sharafta leh Galdogob dhammaantood waxaanu ka codsanaynaa iyo hay'adaha deeqda bixiya in laga saacido markaan hadda saacadan oo la joogo xoolihii dumarkii caruurtii dadkii ku noolaa magaaladaas meel bannaan buu dhooban yahay matoorkii u shaqaynayo ee biyaha ka cabi jiray waa jabay dawladda Puntland inay wax ka qabataan doonaynaa maamulku inuu wax ka qabtaan doonaynaa. ugu dambeynna gudoomiyaha magaalada Barwaaqo Xirsi Cumar Xirsi Ganay ayaa sheegay in magaalada biyo la'aantu u sii dheer tahay baahida goobo caafimaad iyo kuwa waxbarasho. waxyaabo badan baan qabsanay sida ceel masaajid machad iyo guryo badan aan dhisanay waxaan rabnaa madaxda sharafta leh iyo hay'adaha dawliga ah iyo hay'adaha caalamiga ah iyo dhammaan dadka samafalayaasha waxaan ka codsanaynaa inay tuuladan Barwaaqo inay mataqaanaa ay baahideeda ay wax ka qabtaan sida biyaha ceelkii aan samaysanay waa naga jabay waa biyo la'aan baan haysa xoolihii oo dhan iyo dadkii oo dhan